سودا صاحبيال Champions League fiirin doona caawa laba kulan xiiso badan ayaa jiro qaramadii iyo caajiskii ugu dambeyn waa laga soo laabtay oo ciyaarihii xiisaha badnaa ayaa la daawan doonaa waliba gambara iyo dhigan doonaan taageerayaasha kubadda cagta kuwooda mucaaradka ah caawa hal kulan ayaa kan indhaha lagu wada hayn doono oo kulanka xiisaha badan ay wada ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Bayern Munich mid kamid ah kooxaha ugu adag ee caawiji doonaan kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu kulankan ayaa mid aad u xiiso badan caawa afarta la daawan doono waana wareegista dhamaadka koox walba waxay rajeynaysaa sanadkan in ama ay ka gudubto kulankan si lugta labaad ay ugu fududaato ama natiijo wanaagsan ay helaan Madrid inta badan ciyaartooydu waa u diyaar Jude Bellingham ayaa dib ugu soo laabtay caawa wax la sugi doona ayaa ah Alvaro Arbeloa sida u maareyn doona ciyaartooyda awoodda markii la ay wada laacibiinta ah in garoonka ay soo wada galaan waliba ay noqdaan kuwo isku fahma garoonka gudihiisa Bellingham kulamada ugu dambeeyay waa uu maqnaa dhaawac ayuu jiray waxa leeyahay Arbeloa muxuu sameyn doonaa oo da'yarka maalmahan ciyaaray iyo boos ka bixin doonaa mise Bellingham uu ka gelin doonaa isaga ayna sugi doontaa xaaladda adag sidoo ku wajihi karo Company wiilashiisa bandhig sare ku jiraan goolasha ugu farxa badan ee dhalin Realkooda sanadkan waa kuwa aan la qaban karin marka la eego cabsi xoogan ayna dareemayaan kooxda Madrid Company wuxuu yiri mid kamid ah garoomada ugu adag aan aadi doona caawa oo kala jeesan Santiago Bernabeu Arbeloa qodiis wuxuu yiri mid kamid ah kooxaha ugu adag ee wajihi doona diyaar ayaan nahay kulankaas ayaa xiiso badan dhinaca kale Arsenal ay ciyaari doonto iyadoo la soo bandhigay tababarkooda qaabab cusub ay soo bandhigeen Arsenal markan hadii koorna aad ku ogid koornada qaababkeeda xitaa way bedeshay markan iyagoo madax isku jiro ayay keeneen markan Lisbon ay wajihi doonaan oo kulan xiiso badan Bukayo Saka ayaa dhaawac ka maqnaan doona kulanka ciyaartooy kale oo wali aan la shaacin waana Arsenal kulan favorite ee tahay inaad kaan karto awaas kulan jira caawa natiijadu dhankaada maxaad ku soo daalinaysaa